السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه السلامة أصحابتي إذا مالك استاذون ذيك تشوكتان وحيدين لها الليوة أمالكو كن أمال الشيخ آد بايدي السلامية انتي هبين وتوحان لي هبين وناكسن انتي مالو تاين وحان لي مالي وناكسن دمان أمد مسلمين أمد جنالك أمالكو كنكو حرن وحان إلهي أغبري عافمات عمر ديري عبادة الصوبان بإذن الله تعالى طبعا كان بري أو أعماش وناكسن لوجر إلهي وحان كبري إنه إلهي إنه أقبله إن شاء الله تعالى سون كيني صلاة ديني عبادة دينا وبإذن الله تعالى إن جار أهان وحن آدي أد أمهات علينا يا أصحاب تجنر كوحرا بإذن الله تعالى أنت سبسكرايب كعصبة حتى أنه عصب تاي سبسكرايب كتابه جنبريل كتابه وسد قيب تكرتابه إن شاء الله تعالى سوح والبا أن سوق لنوكو وصودع برنامجيدنا أدول سعوديد بإذن الله تعالى وحي فكر كاغي الرأي كاغنا هوس إنه غريب إن شاء الله ويوحي سؤال أدقبتيد بإذن الله إن أصحابتي maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo maxaan dhihi jiray dumarka aad ugu soo badatay inta hadda la xanuunsan oo la daalaadhacaysa ilaahay waxaa uga barya inuu ilaahay caafimaad siiyo inta aanan qabinna inuu ilaahay ka najeeyo biidni illaahi tacaalaa asxaabtayda waxaa hadda aad ugu soo batay soomaali kaliya ma aha mujtamaca dhan burada oo kasoo baxdo raxiimka marka buradaas ayaan rabaa maanta xoogaa inaan qaadaa dhigo oon insha allahu tacaala qaabka mudaawaadka oo normalka ah oo home remedy oo lagu daweyn lahaa video gooni ayaan kasoo sameynayaa laakiin maanta waxaan rabaa inaan taataabto yacni qaabkee lagu gartaa inay ku hayso maxaa la dhihi jiray iyo maxaa la dhihi jiray qaabka lagu garto iyo sidii yacni aad ku garan kartid intaas baa hadda maanta ka hadlayaa biidni illaahi tacaala asxaabtayda horta iyo uur ma ku yeelan kartaa adoo burada qaba uur ma yeelan kartaa asxaabtayda horta burada waxaa weeyaan inta badan waxay yiraahdaan waa qoyaan dhicaan isu tegtegay dhicaankaas marka hore wax yar weeye kadib wuu badanaya kadib wuu adkaanayaa kadib buruu noqonayaa ayay yiraahdaan 99% laakiin wal cilmu cinda allah uuna kala waaweyn yahay mid waxaa jira yaryar oo burtuq oo yariis ah iyo mar uu weynaana uu hilib noqonayo adkaanayo oo markaas ay qasab tahay qofkii in laga soo saaro oo qalliin lagu sameynayo iyo mar waxaa jirto daawo u baahan yahay horta seen ku garan karaa inay yacni uu yahayo xanuunkan seen ogaan karaa seen ku garan karaa calaamadihiisa waa noocma calaamadihiisa axbaabtayda xoogaha waxay u yar dhow yihiin qofka markuu dilmayo mise markuu uurka leeyahay oo kale adii marxalatul xamli qofka markuu ku jiro camal oo yara shabahaan qofka wuxuu dareemayaa dhabar xanuun wali qaybta dambe oo dhabarka ayaa aad u xanuunayso axbaabtayda waxaa kaloo dareemayaa ubuucda inay xanuunayso cramp camal uu nabarka qabanayo qaybta ubuucda waxaa kaloo dareemayaa axbaabtayda culays oo hoos ugu soo degaya maadaama raxiimka uu wax ku jiro sida qofka markuu ama periodka xoogaa si fiican ooga imaanin oo xinjirta ay karabto inay kasoo dhacdo kale ama qofka markuu dilmayo kale oo ilmaha kasoo noqonayo culays iyo xanuun fara badan ayuu dareemayaa tanna xoogaa culays ayuu dareemayaa qofka allahuma istacaan dadka qaar waxay yiraahdeen xitaa markaan kaadinayno culays ayaan dareemaynaa asxaabtayda waxay kaloo qofka dareemayaa belviska miskaha inay xanuunayaan oo sida qof xaamilo kale labada miskood ee qofka aad u xanuunayaan adigu wuxuu yara shabahayaa marxalooyinka qofka xaamilada uu yahay ayuu aad u shabahayaa ta kale asxaabtayda wuxuu dareemayaa qofka in oo maxaa la dhihi jiray caloosha dadka qaar ay soo bararayso oo sidii 3 bilood 4 bilood 6 bilood dadka qaar 6 bilood loo maleynaya calooshooda subxaan allah marka caloosha dhab ayaa lagaa siinaya xanuun sida qofka markuu calool xanuunka hayo ama periodka uu hayo ama infectionka uu hayo kale laakiin asxaabteeda qofka intuu yacni periodka uu ka imanayo aysan dhiiga ku xirin waxoogaha way neefsanaysaayo qofka aad yacni caloosha uma dibirayso laakiin cilada ugu daran waxay imaanaysaa markay period kugu xirto sida qof uur leh asxaabtayda markaas ayaa ugu daran aniga waxaan arkay axbaabii 2 qof ay buradaas hayso 2 qofna oo isu maleynayeen xaamilo inay yihiin mid waxay ahayd naagaala ayaan ku arkay midna waxaan ku arkay gabar Soomaaliya midan horta waxa igu horeysay naagta aan ku arkay oo gaasha ah
naag yani wadanka u dhalatay ayay ahayd. marka dhakhtar ayaan isugu imaanay, waxay igu tiri muddo ma dhalin oo almost 8 sano 7 sano waxay tiri ilmo ma dhalin. kadib waa dadkan waa taqaanaan, dad waxaa jira kirishtaanka xitaa diinta yani diintooda aada u aaminsan, kuwa waxaa jira cilmaaniyiin cawaan ah. marka qoftan waxay ahayd qof yani ahlu kitaab oo diinteeda aaminsanoo in qur-aan la issaaro laguye in yani oo bibleka iyo waxan intuu u tagaan meel biyo lagu rasheeyo wax lagu aqriyo saasoo kale ilaahay owlaad ku siinayo. marka waxaaba daba socotaba, qof baa daba socoto waxay leedahay aniga ilaahay kuu baryaya, waxan waa uur. laakiin iyada waxay tiri sida ilmuhu u dhaqaaqayaa tiri, sida ilmuhu u dhaqaaqayaa waan walacay lalabo. hadda caloosheeda markaasaan qiyaasay adiga 5 bilood iyo bar ilaa 6 bilood aan ku qiyaasay. laakiin caloosha way yara jilicsan tahay, marka caloosha maarata oo saa u riixdo way jilicsan tahay caloosha, tight maaha. asxaabtayda subxaan allah kaaga daranta waxay ku leedahay wuu dhaqaaqayaa like baby u move garaynayay ku leedahay sida ilmihii u dhaqaaqayaa. kadib maxaa dhihi jiray dhakhtarka dad badan marka waxay yiraahdeen waxaan amuusan uur ahayn caloosha maadaama ay jilicsan tahay. xoogaa wayara fikirtay, markaasaan arkayo waxaa la socoto nin iyo naag garanaysa kuwan bastaga loo yaqaano kaniisada ku xirno ayaa la socdo oo yani calaamada sleepka weynaa saa u xirno maanta dhan wax ku akhrinayo saa u daba taagan. marka ilaahay amarkii anagoo meesha ku jirna meeshii gashay. marka hore dhakhaatiirta way ku wareereen, waxaa laga qaaday dhiigag ayaa laga qaaday, everything ayaa laga qaaday, way ku yara wareereen. markuu yani ilmaha uu 3 month iyo 2 month yahay asagaaba xinjira soo ma. kadib 5 month markuu gaaray waxay arkeen waxaan inuuba sida bini aadan u suuraysanayna lugihii gacmihii wixii dhan uusan lahayn. markaas asxaabteeda u sheegeen subxaan allah waa 5 bilood iyo ziyaado ayay caloosha waxaa ugu jirta buro. buradaas waxay moodaysa ilmuhu waxay islahayd ilaahay ilmuhu ku siiyey intaa sugaysay. kuwan waxay leeyihin waxba kama jiraano annagaa yani kuu sheegayna wax inay buro ahayn, yani xag ilaahay lagaaga irsaaqay, xag ilaahay kaaga imaaday, hasoo yaa lagaa soo kelin garayna waa ilmo. xanuunku bay taagnaan la-dahay. waxaa ka daran ilmaha 5 bilood markuu yahay hooyada culays badan ma dareemaysa, ayada way isku caburantay jiq ayay isku tiri. waxaa lagu gartaa markuu qofka periodka uu ku dhicin oo periodka maarata sida xamli ahaan ay kaa dhigto qofka naqaskaa ku dhigaya wuu caburayaa jig iyo isku noqonayaa. waxay ku leedahay habeenka ma seexan karo, pressure badan ayaan dareemaya caloosha, cunto badan ma cuni karo. marka ciladahaas way leedahay asxaabta, ilaahay naga najeeyo. dad waxaa jirto oo kale ayadoo ku taalo laakiinse uu ku dhacayo periodkii uu ka imanayo periodkii. marka waxaa roon markuu kaa imanaya ayaa aada iyo aada u roon. alxamdulilah ilaah ayaa mahad ii shuurile. marka waxaa fiican dhakhtarka hadduu kugula taliyo asxaabteyda, anigana waxaan kugula talin lahaa ra'yiga dhakhtarka inaadan khilaafin, qiila waqaalo aadan sugin. hadduu bahashan weynaato waa wax meesha ku jira, hadday ku raagto wax walba isu bedeli kartaa. marka hore dhakhtarka hadday yarta wuxuu isku dayayaa inuu daweeyo, uu dawo caadi ku daweeyo. mararka qaar waxaa dadka qaar waxay yidhahdaan uurka laguma yeesho. anigoo buro igu taalo uur ma yeelan karaa? su-aale inta badan lagu soo weydiin kara wey, ama naftaada haddaa buro leedahay aa isweydiin kartid. dabcan anigu waan arkay hooyo uur ku qaaday ayaan arkay, laakiin aada ugu tabcaantay because buradeeda aaday u weyneyd, buradeeda way weyneyd ayadoo dawadii iyo treatmentii u socdo ayay waxay tiri ayaan uureystay. uurkii markuu waxay tiri marayo 4 bilood oo kale xanuun ayaa bilaabay tiri, calooshii hoos ayadii kasoo riixaysay tiri oo weyn, ilmiyaa sii dulfuulay tiri. kadib ilmihii dhaqaaq markuu bilaabaa aad iigu darnayday tiri, aad ugu xanuunsaday tiri. subxaan allah. kadib dhakhtarki wuxuu igu yaray tiri maxaa xal oon sameynaa, ilmahaaga maa u sabri mise burada waan soo goynaa, maxaa ilmaha waan soo saarnaa. marka waxay tiri maya waan u sabraya, waan u dul qaadanaya ay tiri. xanuun inaba aan caadi ahayna aad u qaban jiray, zaid baan dhoolka iyo paracetamolka waxaasoo dhan waxba uma qaban jirin, caloosha ayaa carbad looga duri jiray. marka jaanis waa u haysta uur ku yeelatid, laakiin waxaa fiican markii la daweeyey inaa uureysatid sidaa yani xanuunkan faraha badan aa uga badbaadid. waayo qof xaamila hadaa taa xanuun fara badan uma adkeysan kartid. hooyada markay xaamilada noqoto yani way jilicsantahay, aada iyo aad bay u jilicsan tahay, marka waxyaalo badan uma dulqaadan karto.
ayadana hoos ay kasoo riixaysaa oo aad iyo aad u weyn, waayo cadaadis ayay saaraysaa, raximka ayay ku dhex jirtaa, miskax ayaa aad kuusii kala dhacayo, xanuunka yani creamka ah oo ayada ay qabta normalka ahaa ayaa kugu sii kordhayo. laakiin 7 maanta hadduu ku gaaro ilmahaas way soo saarayaan, because qofka caadi uma foolan karo, ayadaa kula jirta meesha, marka inay daamid gaarsiisay waxaasay ka cabsanayaan ayaa laga yaabaa. marka waxaan ku leeyahay dhakhtarkaaga la xiriir, talidiisa qaado, la soco. markay yartahoo kale oy dhacaankii waxaa iska bilaabaysoo kale inta badan waa la daweyn karaa, oo yacni antibiyootig iyo qalajiyo wax badan ayaa lagu daweyn karaa. mudaawaadkan gadaal ayaa idinkaga soo gelin doonaa. igu tiri gabar waan ku aflaxay, ay ugu tiri alxamdulilah. marka hore waxay dhehana tiri macal makaankaan la saaraynaa maadaama aad ay ugu dhegtay, kadib mudaawaadkanay isticmaashay, ayada unbaa markii dambe laga soo gooyay alxamdulilah. marka asxaabtayda, jaanis hooyada uur way u qaadi kartaa iyadoo buro ku taala. waxaa uun la diidayaa inay burada aada u weyntaho ay dhibaato ka timaado oo qofka hadhow uu xamili waayo, uu xanuun badan uu dareemo, unbaa taas unbaa laga cabsanayaa. laakiin uur qaadida wax ka mamnuucaya ma jirto. haddii la gooyay mararka qaar waxay dhahaan, inkastoo aniga dhakhtar afkiisa aan ka maqlin, gabdho badan oo laga gooyay waxay yiraahdaan markiina laga gooyay kadib uur maanan yeelanin. laakiin aniga waxaan u malaynayaa kule asbaabo kale inay jiraan, waa suuragal ay waxyaalo kale jiraan. dad ku ureystana waan arkay, gabdhay igu yiraahdeen kumaana ureysan intana laga gooyana waan arkay. dad ayagoo laakiin waxaan arkay dawadii u socota oo dawadii loo wada uurka ku yeeshay, indhaha waan saaray. marka alxamdulilah waa iska imtixaanaadka adduunka ayay kamid tahay, oo in lagu sabro ay u baahan tahay ayay kamid tahay. marka mar walbaba waxaan ku dhihi lahaa ilaahay isku xir, allah tala saaro, ilaahay bari inuu yacni waxan kaaga dhigo wax saqiran oo sahlan. asxaabtayda, dhakhtarka ra'yigiisa aada iyo aada u muhiim u yahay, kusoo celcelinaya, waa aragtaan carabkayga aada buu u hayaa. marka dhakhtarkaaga ha ilaabin insha allahu tacaala, waayo asaga ayaa naga og, asaga ayaa hadba heerkay marayso og. way kortaa bahashan, waxaa jirta mid daqiiqad u weynaataa jirto oo saacado u korto. weli waxay aada iyo aada u kortaa markuu qofka periodka uusan ku dhicin, waqtiga xaydka u iman jira ama dhiiga uu ku dhici jira macduurka uusan u imaanin, ay aada u kortaa. daqiiqad ayay u koraysaa. marka waxaan ku leeyahay iska ogow, la soco. markii lasoo jarana ayaga ayaa baaraya xaaladeeda. waxaa kale dhakhaatiirta kula taliyaan qofka inuu daayadkiisa bedelo, inuu cuntadiisa bedelo, inuu yani everything iska bedelo, biyo badan inuu cabo, exercise inuu sameeyo. qofka laakiin hadduu la fariisto waxay dhahayaan ma fiicno, cuntadaada bedel. dhakhtar walba oo aad wuxuu kuleeyahay cunto, hadduu gaas ku hayo, hadduu xanuun ku hayo, hadduu sukor ku hayso, hadduu dhiikar, everything waxaa lagu leeyahay change your diet, cuntadaada bedel. cuntadaada waxa buunshaha uu ku badan yahay ku bedel, whole wheatka, whole grainka, waxaasoo dhan. beeriskoo kale hadaa helaysa strawberry, blueberry, cranberry, waxaasoo dhan beeriska way u fiican yihiin, caafimaadka ayay u fiican yihiin, infectionka jirka ku jiro oo dhan ayay la dagaalamaan. waxaan marka hore wuxuu ka bilowda wax dheecaana, antibiotic qalajiya ayaa lagaa siinaya, qiyaas ayuu leeyahay. marka qiyaastaas hadduu dhaafo waxay ku leeyihiin buro uu adkaanaya, buro ayuu isu bedelayaa. kadib marka waa inaa adiga daayitkaaga ku dadaasha, caafimaadkaaga ku dadaasha, cuntadaada iska saxda, boorashkoo kale, oranjidoo kale. kale difaacaaga waa inuu yacni sareeyaa, u kor ahaadaa. difaacaaga oranjidoo kale, vitamin c, waxyaalaha difaaca yacni jirka bini-aadanka uu adkeysan karo, adkeysi uu yeelan karo ayay ku jirtaa in aada loo cuno vitamin c-ga. haddaa oranjiga aadan jecleen waa inaa isticmaashaa kaniinka vitamin c-ga biidni illaahi tacaala, oo aada iyo aad yacni difaacaga kor usoo qaadi doona haddaa helaysid. dadka waaweyn iyo ilmahaba aada ugu fiican yahay, waayo qofka hadduu vitamin c-giisa hadduu dhaco ama difaaciisa uu dhaco, asxaabtayda cuduro badan ayaa usoo hoskeli kara. ilaah ayaan ka magangalnay. xitaa waxay dhahaan qofka hadduu aayonkiisa dhaco, vitaminkiisa dhaco, ilaah ayaan ka magangalnay. kansarkii waxaasoo dhan wuu u sahlan yahay, walciyaadu bilaah. xanuun xun iyo cudur daranba allah ayaan ka magangalnay. marka annaga waxaan bixinaaba waa juhdi iyo dadaal insha allahu tacaala. marka waxaan leeyahay ilaahay uga baryayaa inta la xanuunsan inuu xanuunka ka qaado, inta caafimaadsan oo caafimaadka allah u siyaadiyo. adaa daayidkaaga adaa sixi karo. haddii lagu yiraahdaba waxaa lagu sixi karaa cunto iyo cabitaan, waa inaa iska saxdaa, waa inaa daayidkaaga saxdaa, waa inaa caafimaadkaaga ku dadaashaa. aada iyo aad
waa ina caloosha dheragta badan ka ilaalisaa. Dheragta badan cudur ayaa laga qaadaa siduu nabiga sal allahu alayhi wasalam noo sheegay. caloosha 3 meel ayaa loo kala qaadaa, yacni thuluthun liطacaam dhinac oo cuntada, thuluthun lisharaab dhinac oo cabitaanka, iyo dhinac thuluthun litanafus iyo qofka meeluu ka neefsado uu hawo uu ka qaato. laakiin hadda calooshii aad burcad ama bariis cad aa ka buuxisid, waxaa weeye waxyaalo badan ayaa ka dhalan kara. sokor ayaa ka dhalan karta, dhiikar ayaa ka dhalan kara, cholesterol ayaa ka dhalan kara, wadna garaac ayaa ka dhalan kara, waxyaalo badan ayaa ka dhalan kara. marka cuntada adigoo yacni shan waqti cunaya, si yaryar ayaa u cunaysaa, si tartiib ayaa u cunaysaa biidnillaahi tacaala. videoga saa idin sheegay oo isku dardarka mudaawaadka kadaal ayaa idinkaga soo gelin doonaa. waa wax gurigaaga yaala, wax weyn wasi ah, waxaa raadinaysa ma aha. biidnillaahi tacaala ayaa idin leeyahay. haddaa ka heshay asxaabtaada la wadaag si aygana uga faa'iidaystaan, ay u gartaan calaamadaha lagu garto iyo qofka yacni uur ma ku qaadi karaa, inuu jaanis u haysto inuu uur ku yeelan karo, laakiin xanuuno iyo dhibaato badan uu kala marayo. dadkan isku mid ma aha. dad waxaa laga yaabaa wixii ay yaryihiin oo waxbana aana ku noqoninna way dhici kartaa biidnillaahi tacaala. laakiin waxaan kugula talin lahaa haddii buro lagugu sheego inaa uurka xoogaa iska ilaalis inta iyada lasoo kelin garaynayo insha allahu tacaala, ama laga daweynayo. weli inta yartaa ayaa fiican. wax walba markuu yarya ayaa wax laga qaban karaa. hadduu weynaado waxaa weeyaan dhibaatadiisa ayaa iska badan, soo maaha asxaabtayda. marka aan ku dadaalno insha allahu tacaala caafimaadkeena inaan anaga yacni aan sii horumarino. asxaabtayda biyaha kulul iyo malabka subaxii hore haddaa isticmaashaan oo laazimataan, calooshiini wixii dhib iyo dhibaato ku iman lahaa way ka hortagayaan. maasha allah tabaaraka raxmaan. biyaha qandaca waxay shiilayaan wixii baruur ah, faad ah, wasakh ah. malabkan wuxuu la dagaalamayaa wixii bacteria, infection, qurunka, wax wasakhda oo dhan ayuu la dagaalamayaa. asxaabtaydu waxay dhahaan waayadan dambe burada waxaa u fiican ama hormoneska aada u saxa green-tiga weli mid waxaa jira aanan fiicneen, mid waxaa jira fiican, way kala fiican yihiin ayay yiraahdaan. green-tiga ku dadaala uu fiican yahay. hadday isqurxin noqoto, tima hadday noqoto, calool hadday noqoto, haddaad taqaanid yacni qof yacni la aamini karo oo fiican. baryahan dambe waxay sameeyaan ayadoo feeg ah oo aada iyo aada raqiiso oo feeg oo waxba tarin qofka inay dhib gaarsiisa ma ahaane. marka haddaa helaysa green-tiga waa the best tea oo la cabo wey. aad buu caafimaad badan yahay. aad cholesterol hadhihin, dhiikar hadhihin, diet hadhihin, miisaan dhimis, everything wuu u fiican yahay. wejiga, haaraha, waxaasoo dhan aad buu ugu fiican yahay. marka haddaa helaysa green-tiga asagana isticmaal, uu kuu fiican yahay, uu kuu wanaagsan yahay. waa sida yacni aan ka akhriyay meelo badan fibroidka marka laga sheekeynayo, burada laga hadlayo, waxyaalaha u fiican ayuu ku jiraa. flaxseedkoo kale waxyaalaha u fiican oo la dagaalama yacni burada ayay ayadana ku jirtaa. marka waxaasoo dhan insha allahu tacaala aan ku dadaalno. ilaahay waxaan ka magan galnay xanuuno xunxun. adiga waxaa laga yaabaa inay wax yar ku hayaan, qof waxaa arkaysaa kaa daran oo dhaqaaqila oo kicila. ya maama ana waxaan arkay 2 kiilo laga soo gooyey, subxaan allah. oo hooya maxay ka qaaday mataqaanaan asxaabtayda, ilmo ku dilmay wixii ku haray ayaa isku bedelay bahashaas burada ah. waa haddee maamo waxaan u malaynayaa almost markaas kasoo wareegatay ilmaheeda 17 sano 18 sano kasoo wareegatay. marka hore way diiday, way ka warwareegatay, laakiin marka dambe way soo hordato, way dhaqaaqi weyday. alxamdulilah waa laga soo gooyey, waa la hagaajiyey. maasha allah tabaaraka raxmaan. balaayo ma qabto, way fiican tahay. qalniin dheer ayay mariyeen, aada iyo aada u dheer. laakiin alxamdulilah ummadda ilaahay marka hore dhex gashay, masaajidaa looga duceeyey, qur-aan baa la saaray, kaa ilaahay bay isku xirtay. maasha allah iyadoo yacni murtaax ah. waa qofka hadduu qur-aanka akhristo ama adkaarta isku akhriyo qalbigiisu wuu degayaa. alaa bidikri illaahi tadma-inu alquluub. dikriga ilaahay qofka qalbigiisa way degaan, way dejiyaan, xasilooni ayuu dareemayaa. maxaa la dhihi jiray qofka xitaa markuu qurboodo 2 rakac hadduu tukado, kurbadii iyo murugadii iyo wixayoo dhan ilaahay wuu ka qaadayaa. qofka wuxuu dareemayaa xasilooni. maasha allah tabaaraka raxmaan. marka mar walbaba dhakhtarkaaga isku xir, dhakhtarkaaga la tasho. waxa hadduu fitamiino ahayn, waxyaalahan public lasoo dhigaayo oo leeyahay kiniin ayaa u fiican, iska ilaaliya. waayo waxa marxalad ayay leedahay, marxala. laakiin qof kaniin uu cunay hadduu waxa fitamiinaad hadduu yahaa, ama dawooyinkan gaaska iska normalka qof walbaba iska qaataan. laakiin kaniinada antibiyootiga ah waxay kala leeyihiin level. ta kale waxaa loo kala isticmaalaa qofka hadba infectionkiisa intuu la egyahay. midkaaga inuu yaryaha laga yaabaa, waayo antibiyootika faraha badan keliyaha ayuu damage gareeyaa. waxaa oo yar dosage gabar yacni
dosage weyn loo soo qoray ama qiyaas weyn loo soo qoray haddaa intaad sawirkeeda screenshot ka qaadatid ama aad coverkeeda qaadatid dhibaato ayay kuu keenaysaa. laakiin dhakhtarka wuxuu ku cabirayaa xanuunka ku hayo iyo dawada aad qaadan karto. ma fahmaysaa? ilmaha markay yaryihiin waa aragteen da-diisa iyo miisaankiisa wax lagu siiyaa dawo. haddaa laakiin aad meel kasta inta lagu soo dhigay gascad yar aad gasi inta screenshot ka qaadatid aad raasatid dhibaato ayay keeni kartaa asxaabtayda. ma fahanteen? marka waa idin salaamayaa meel kasta aad dunida ka joogtaan. shaahan ku dadaala, daayidka saxa, xanuunaha baasha lagu gartana waa noocaas. uurna jaanis hadduu ilaahay kugu talagalo waa u leedahay biidni illaahi tacaala. laakiin mar walba waxaan ku leeyahay dhakhtarkaaga la xiriir. waa the best inaad la xiriirtay aday kuu wanaagsan tahay, waayo hadba wixii meeshuu maray asagaa yaqaano. aad iyo aad baa idin salaamayaa. intii habeen wanta waxaan leeyahay habeen wanaagsan. qofki idinla hadlayo idiin soo gudbinaya fikirkii ra'yiga waa walaashin amaal sheekh amaal kukin. haddaa nagu cusub tahay soo dhawow ayaan ku leeyahay. haddaa hornoola joogtin aad baad u mahadsan tahay. wixii ra'yi iyo fikra hoos inoogu dhaaf insha allahu tacaala. mudaawaadka isku dardarkana